الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعن ونكسن أخيارتنا دقيسانيسا يكسو دواذا برنامجك أندلس بودكاست xalqadan insha allahu tacaala waxaan diiradda ku saari doonaa xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika maxaa ka socda suudaan waa maxay xiisadda ka soo cusboonaatay etoobiya ma dhabbaa inuu soo dhowaaday dagaalka asmara iyo adis ababa waa ayo laacibiinta maanta ku hardamaya ama ku loolamaya gobolka soomaaliya se halkee ayay ka taagan tahay hardanka soconaya maxaase mustaqbalka laga filan karaa gobolka waxaa barnaamijka maanta igala qaybgalaya abwaanageeye cali khaliif oo in badan oo ka mid ah ahdaaftan iyo dhacdooyinkan soo akhriyay isla markaana maanta marti ku ah mar kale barnaamijka Andalus podcast soo dhawow marka hore abwaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin aad iyo aad baad u mahadsantahay Faysal walaal waa dhawaah ustaad ugu horeyn waxaad marka hore qiimeen iyo sawir guud naga siisaa wadciga iyo xaaladda imika uu ku jiro gobolka geeska Afrika waa mahadsantahay walaal Faysal geeska Afrika markay ka hadlayaan waxay yiraahdaan geeska Afrika saddex qaybood bay horta u qaybiyaan waxay yiraahdaan waxa jira waxa la yiraahdaa geeska siyaasiga iyo geeska juqraafiga iyo geeska weynba dalalka soo galayaaba ayaa dabcan kala duwan geeska juqraafiga waxay uga jeedaan waxa weeyaan markaad khariirada ama maapka la fiiriyo dawladaha markiiba ku muuqanaya meesha geeska ah ku jira ayaa waxay yiraahdaan waa geeska juqraafiga marka waa dhowr dawladood waa Soomaaliya Ethiopia Djibouti iyo Eritrea waxaa geeska juqraafiga marka laga hadlayo afarta dawladood weyn sidoo kale waxaa jira waxay yiraahdaan geeska weyn oo dawlado kale oo fara badan ay soo galayaan laakiin inta ugu muhiimsan geeska laga hadlayo inta badan waa geeska ay yiraahdaan geeska Afrika siyaasiga oo 8 dawladood labadan dawladood ee Soomaalida Djibouti iyo Soomaaliya Ethiopia Eritrea labada Suudaan Kenya iyo Uganda sideedda dawladood baa hadda waxay yiraahdaan waa geeska Afrika ee siyaasiga ama intan ururka hadda igad la yiraahdo ku wada jira marka haddii geeska Afrika ee siyaasiga aan fiirino sideedda dawladood hadda aan magacooda soo sheegno waxa laga yaabaa haddii mid la yiraahdo tusaalahan kale looga warramo inay dheeraato laakiin umuuman markaynu isu soo ururino dalka Suudaan oo kale waxay yiraahdaan waa dalka saddexaad ee hadda qaaradda Afrika maartay ugu dhul weyn Afrika laba dawladood oo ka horeey Ethiopia oo kale waa dalka labaad ee hadda qaaradda Afrika ugu dadka badan Djibouti oo kale waxay yiraahdaan waa dalka koobaad ee dunida oo dhan saldhigyada ugu badan ee ajaanibi ay ku yaalaan awoodaha askariga isugu tageen Soomaaliya oo kale waxay yiraahdaan waa dalka Afrika oo dhan badda ugu dheer ama xeebta ugu dheer isagu leh marka waxa dareemaysaa South Sudan oo kale waa dawladda ugu dhalinta yar ama ugu caruursan ee adduunka maartay ku soo biirtay marka horta dawladda noocaas ayaa geeska Afrika ka kooban yahay xagga marka la eego kala duwanaanta qoomiyadaha waxay yiraahdaan waa gobolada adduunka ee qoomiyadaha ugu tirada badan ee kala duwan ay ku wada nool yihiin Ethiopia oo kale la leeyahay 100 qoomiyadood oo kala duwan oo kala af oo kala diina kaligeed jooga xagga khayraadka webiga Nile ayaa gobolkan ku yaala oo runtii ah meel nolosha aadamaha aad muhiim ugu ah webiga Nile waxay yiraahdaan 11 dawladood meelahaas ayuu maraa laakiin meelaha ugu badan ee uu ka tagaa waa Ethiopia marka dambena Suudaan buu sii maraa ilaa uu masaarida u gaaro
arrintaas runtii muhiim kale gobolkan ka dhigaysa baabul mandab oo iyaduna marinadan 7 marin ee adduunkaba ugu muhiimsan ee dunida isku xidha mid ka mid ah kuwooda ugu muhiimsan oo baabul mandaba isaguna geeskan Afrika ku yaala badda cas oo iyada lafteeduna muhiimad kale juqraafiye gaar ahaan marka loo fiirinayo isu socodkan badda cas iyo dhuuxas maraya ilaa iyo Suez Canalka aad iyo aad isaguna gobolkan ayuu qayb ka yahay markaas waxyaabahaas marka la isku dardaro horta gobolku waa gobol runtii muhiim ah weey ahmiyad leh marka meesha uu ku yaalo khayraadka uu leeyahay dhul beereedka oo runtii gobolkan ku badan waxyaabahaas waxa laga yaabaa marka inay keenaan xasaradaha uu inta badan ku jiro wax kamid ah ay u soo jiidaan ama faragelinta gobolka inta badan ku imanaysa ay horseedo oo dawladaha waaweyn oo kale inay soo hunguriyaan meeshu ku yaala waxay fursad u siinaysaa mar walba inuu ahaado meel lagu loolabo marka meeshaad ku taala marna waa fursad marna waa mushkilad markaad adigu xoog badan tahay meeshaad ku taala fursad weey waad ka faa'iideysan kartaa laakiin haddaad daciif tahay meeshaad ku taala marka qaar waa lagu dul dagaalamaya waa saas marka hadda xaaladda uu ku sugan yahay gobolka sidaas ah bal ka waran 8 gobol hadda aan sheegnay qaar badan oo kamid ah dagaalaha hadda ka socda hadda meelaha ugu dambeeyay waa Suudaan si guud taariikhdeeda waxay ahayd waxa la yiraahdaa dalka ugu dhul ballaaran qaaradda Afrika ayay Suudaan ahayd markii ay xorriyadda qaadatay 1956 bay Ingiriiska iyo Masaarida oo si u wada socday ay xorriyad ka qaadatay markiiba dagaal baa wuxuu ka bilaabmay gobolkan koonfureed ee Southern Suudaan la oran jiray dagaaladaas waxyaabo badan baa dabada ka riixay gobolkan koonfurta Suudaanna meelaha khayraadka ugu badan shidaalkii waxaas ay ku jireen buu ahaa aduu gabagabadiisa waxay ku dhamaatay in dalkaas la kala jaro oo qaybta koonfurta Suudaan ay dawlad gaar ah noqoto waxay iyagana dagaal ka dhaceen gobolkii galbeedka ee Darfur iyadana mushkiladeedii wali lama xalinin waa meesha marka dambe Janjawiidka iyo nimankan RSF la yiraahdo ay ka soo bixi doonaan tabashooyinkii noocaas ee jiray baa markaa nidaamkii Umar Xasan al-Bashir uu waagaas meesha ka baxay nidaamkii markaa meesha ka baxay dalkii oo dhaqaale ahaan iyo cunaqabatayno badan oo banaanka kaga yimi waxaasina muddo ay ragaadiyeen ayaa markaa waxay keeneen inay inqilaabkii wixii uu eegay Umar Xasan al-Bashir xukunka lagaga qaado iyo raggii dabcan xukunka la wareegay iyo laftooda xukunka sidii uu ekaan lahaa ku heshiin waay salaam kale RSF tani waxa niman asal carbeed leh oo loogu talagalay qaab macawisleynimo inay uga dagaalamaan meesha la yiraahdo Darfur marka al-Burhan iyo marka daba Xameti waxay ku heshiin waayeen ciidankan wixii laga yeeli lahaa dalkina labadooda wada xukumo dabcan Burhan wuxuu isku dayay inuu ciidanka Janjawiidka ciidanka qaranka lagu daro Xametina wuxuu arkay haddii ciidanka lagu daro ciidanka xoogga dalka haddii lagu daro inay taas macnaheedu tahay in awoodiisa gacantiisa ka baxday gacanta al-Burhan galayso taas markaa waxay keentay hadda mushkiladan cusub ee 2023 bilaabantay ee markii dambena dagaalka weyn isu bedeshay Suudaan marka hadda dagaal weyn baa ka socda runtii Imaaraadku waa xoogga ugu weyn ee taageeraya RSF ilaa hadda inta la og yahay warbaahintu waxay sheegaysaa dawlado kale oo maaragtay gadaal ka sii taagan Imaaraadka inay jiraan sida Yuhuudda kala la sheegay Yuhuudda wala sheegay xataa warbaahintu waxay soo bandhigaysaa la leeyahay hub laga keenay China iyo hub laga keenay Ingiriiska iyo in lagu arkay RSF marka laakiin aktarka ugu weyn ama laacibka ugu weyn hadda iyaga taageeraya muuqda ismuujinaya Imaaraadka weyn waa gartay de marka gobolka Darfur qaybo badan oo kamid ah la soo wareegeen Kordofan wax kamid ah bay la wareegeen marka galbeedka dalka iyo koonfurta dalka qaybo kamid ah hadda iyaga jooga al-Burhan caasimadiisii wuxuu bedeshay Port Sudan oo waqooyiga dalka xeebta ku taal isagana waxa la leeyahay Turkida iyo Masaarida iyo wixii kale uu heli karo ayaa isagana taageerayaal u ah marka dagaal maaragtay labada qoloba ay haystaan cid kale oo ay ku tiirsan yihiin oo u muuqdo wali dagaalkaasi maaragtay inaan natiijadiisa wali la saadaalin karin ayaa Suudaan ka socda de mushkilada badan baa ka dhashay inta hadda dagaalka cusub socday dad 150 kun oo qof oo rayida ka badan baa waxa la leeyahay way ku dhinteen marka Suudaan walaal halkaas maraysa waa gartay aan u imaano marka Ethiopia iyo waxa ka socda waxa nagu maqaala in xiisada Ethiopia ka taagan iyo gobolkii Tigreega ee TPLF in xiisadaas iyaduna ay dib u soo noolaatay Ethiopia markii nidaamkii Mengistu Haile Mariam uu dhacay 1990 Ethiopia maadaama qoomiyadaheeda iyo kala duwanaanshiyaheedu ay badan yihiin nidaamkii Meles iyo TPLF waxay qaateen aragti ah in Ethiopia federaal lagu maamuli karo in dawlad dhexe oo Addis Ababa looga taliyaa aanay dadkan kala duwan ee tabashooyinka badan qaba inaan la isku hayn karin saas daraadeed waxay qaateen nidaam federalism
oo awoodda wax ka mid ah dadka loo sii daynayo qoomiyadaha inta kalena Addis Ababa lagu haynayo taasi markaa waxay keentay inay qoomiyadihii iyo kala duwanaanshihii uu sii faafo oo qolo waliba identitygeedii iyo abtirsiimadeedii iyo qoomiyadnimadeedii iyo wixeedii ay dib u soo noolaadaan 9 maamul baa waagaas loo qaybiyey markii dambe waxaan filayaa mid kale ama laba kale wax saasaa ku soo biiray ilaa 11 maamul bay markii dambe gaadhay oo federaal ah 11 ka maamul markaa waxay ku salaysan yihiin qoomiyad bay ku salaysan yihiin qoomiyadda Axmaaradu maamul gaar ah loo sameeyay Tigrayga maamul gaar ah loo sameeyay Oromada maamul gaar ah loo sameeyay Canfarta saasaa loogu sameeyay waa gartay marka ugu yaraan 30 sanadood waqti ku dhow ay TPLF horta dalka sidaas ay ku xukumayeen markii nidaamkii TPLF intaanay meesha ka bixin tabashadii ka qoomiyaduhu waxay keeneen in nidaamkii TPLF uu sii socon kari waayo gaar ahaan markii Malees uu meesha ka baxay waxay keeneen qoomiyadii Oromada gaar ahaan oo Addis Ababa iyo dhulkeeda ka agdhow kacdoonadii inay kacdoona bilaabaan kacdoonadaasi markii ugu dambeysay marka waxay sababeen ama jabhadan maxaa la waxay ururka ay qeero u bixiyeen dhalinyaradooda ahaa mar kacdoon dhalinyaro oo diidan nidaamka TPLF ama kuwan maaragtay hadda markii daba Axmaarada deegaankooda ka dhacay faanada oo kale iyo wax la mid ah adoo arintaas waxay qasabtay TPLF inay dalka xukumi kari weeyeen waa marka kacdoonka uu ku iman doono Abiy Ahmed xukunka uu ku imanayo Abiy Ahmed marka wuxuu qaatay aragtiya haddii qoomiyadnimadani ay sii socoto in Ethiopia ay kala tagi doonto isagu intii dadaalkiisa markaa wuxuu ku dadaalay in federalismka si dhab aan u tirtirin laakiin awoodaha wax ka mid ah uu Addis Ababa ku soo celiyay ama ugu yaraan Ethiopia loo qaybiyay nidaam federalism oo ka duwan kii qoomiyadaha sooran kale gobol ku salaysan qaybta waqooyiga maamul gaar laga dhigo oo ay ku wada jiraan Canfar iyo Tigray iyo Amhara qayb ka mid ah ku wada jiraan galbeedka maamul gaar loo sameeyay marka qoomiyadnimada meesha laga bixiyo oo nidaam federalism oo professional oo gobol ku salaysan halka qoomiyad kaga salaysan la sameeyo taana qoomiyada badankoodu way ka dideen waxay u arkeen inay xoogaa ay caqabad ku tahay marka shakiga laga qaaday maxaa la yiraahdaa Abiy Ahmed inuu federalismkii burburinayo qayb ka mid ah bay kacdoona bilowda marka oo maamul goboleedyadii meeshii ugu horeysay marka laga dareemay in laga hortago maxaa la yiraahdaa tallaabooyinka Abiy soo socda gobolka Tigrayga waxa kale oo runtii muhiim u haytaa in la xuso Tigrayga ama maamulada kale xilligii Malees waxa loo sameeyay waxa loo bixiyay Leopoldsk waa ciidamo gaar ah oo paramilitary oo ciidamada maxaa la yiraahdaa maxaa wasaaradda gaashaandhigga hoostaga ama ciidamada qaranka waxa la yiraahdo ka madax bannaan oo maamul goboleedku uu gaar u leeyahay ciidamadaas markaa maamulada badankoodu ay samaysteen ciidamadaas markaa ciidamo arxan daran loogu talagalay dadka deegaamada in lagu caburiyo whatsoever laakiin isla ciidamadaas markii dambe waxay noqdeen caqabada ugu weyn ee uu wajahay ninka la yiraahdo Abiy Ahmed maamul waliba wuxuu haystay kumaankum askari oo hubka fudud ku hubaysan oo deegaanka ka soo jeeda qoomiyadiisana daacado meeshii koowaad markaa laga dareemay kacdoonka noocaas wuxuu noqday Tigray sidoo kale wuxuu hubay Abiy Ahmed wuxuu hubay ciidanka ugu badan iyo hubka ugu badan iyo farsamada ugu badan kuwa haysta inay Tigray yihiin maadaama Malees Zenawi iyo jabhadii hadda dhacday kaadiriintii Addis Ababa xukunka laga wada wareegay wuxuu dhamay gobolka Tigrayga isku urursaday meesha dagaalka koowaad ka bilaabay markaa waxay noqday daba Tigrayga markaa dagaal adag baa la galay oo 2 sanadood markii hore Abiy Ahmed wuxuu qiyaasayay bilo ayuu dadka u sheegay in Tigrayga lagu soo afjari doono laakiin mararka qaar kood waxaba xagga kale isu rogi gaadhay mararka qaar kood Tigrayga waxay ka soo ag dhawaadeen bayni Addis Ababa ay ku soo dhawaadaan haddii aan la heli lahayn taageerada cirka ee maxaa la yiraahdaa Imaaraadka waxaba dhici lahayd ba inay Tigrayga ay soo jeedaan taageerada dhulka ee Eritrea inay soo jeeri lahaayeen maxaa la yiraahdaa ciidamada xoogga dalka waxa kaloo jiray maxaa la yiraahdaa Abiy Ahmed oo taageero ka helay qoomiyadihii ku kacsanaa Tigrayga maadaama muddo dhulka xukumayay dad badan oo gacantoodu ay gaadhay oo lucloobay baa jiro oo deegaanka ama dhul ay xoog ku qaateen Axmaarada kale dhul bay xoog kaga qaateen Eritreanka laftooda waa kuwii tuulooyinkii lagu dagaalamay xoog ku haystay marka qoomiyadiina wuxuu ka helay marka taageero ka helay gaar ahaan Axmaarada uu taageero ka helay uu ku dhulkiina ay Tigrayga ka xoogeen waa ka soo qaadan kartaa Eritreankina taageero ka helay wuxuu dhulkii Eritreanku ay xoog Tigrayga xooggeeda kaga haysteen waanu idiin soo celin waxaan rabnaa inaad Tigrayga nala dishaan taageerada noocaas marka waxay keentay in Tigrayga gacmo badan oo wada socda ay ku dhacaan ugu dambeyntiina waana laga adkaaday heshiiskii Pretoria markii dambe waa tii la galay heshiiska Pretoria wuxuu sheegayaa in kastoo Tigrayga laga adkaaday haddana in la tirtiro Abiy Ahmed uu ku guuleysan kari waa quwadooda iyo awoodooda meesha laga saaray 600 kun oo qof oo Tigray baa dhintay baa la yiraahdaa oo shacab leh oo dadkii dagaalamayay laakiin haddana arrintaasi may suurto gelin in Tigrayga la tirtiro marka heshiis baa la galay Pretoria 2022 meelaha heshiiska Pretoria Abiy Ahmed uu la galay marka Tigrayga
haddana waxay furtay fawdo kale waxay fawdo ka furtay gobolka axmaarada waxay arkeen in lagu dangaaray kadibna cadowgoodii lala heshiiyey iyadoo aan lagala tashanin iyagana loo soo jeesan waxa kaloo ay dareen weyn ka qaadeen gobolladii markii hore axmaaradu ay sheeganayeen in dhulka Tigray ka tirsanaan jiray intii dagaaladu socdeen axmaaradu way qabsadeen goboladoodii way soo ceshadeen heshiiskii Pretoria waxaa lagu qoray dhulka inay Tigray leeyihiin axmaaradu ay ka bixi doonaan marka axmaaradu waxay qaateen in maxaa la yiraahdaa Abiy Ahmed uu dantoodii ku gaaray kadibna uu balankii kaga baxay cidda dambe hadda bartilmaameedka noqon doonta iyaga yihiin Tigrayguna ay bartilmaameedsan doonaan cidii kalena ay bartilmaameedsan doonto waxa kaloo isaguna dareen ka qaaday heshiiskaas taliska Asmara oo u arkay in lagu guuray maxaa la yiraahdaa ciidan badan iyo saanad badan iyo farsamo badan dagaalka Tigrayga ay kaga baxeen markii dambena la heshiiyey Tigrayga iyadoo aan waxba iyaga laga weydiin wax doora ku lahayn maxaa la yiraahdaa wax doora aan ku lahayn heshiiska TPLF la laga dhulkina inay ka baxaan ciidamada Eritrea ay dalka bixi doonaan arrintaas markaa waxay abuurtay mar kale in ay Abiy Ahmed indha kuwii hore ka duwan ay ku soo fiiriyeen axmaarada inay ku soo fiiriyaan sidoo kalena Eritreanka talaabo kuloo Abiy qaaday waxay ahayd inuu isku dayay inuu ciidamadii Liu Poliska markaa si guud u hubka dhigis ku sameeyo gobolka axmaarada markaa ku xiga meelihii la sheegay inuu hubka dhigis la samayn doono axmaaradu markaa waxay qaateen go'aana inay go'aankaa ka soo horjeestaan markaa dadkii dhalinyarada ahaa ee markii hore mudaharaadayay ee faanadii waxa ahaa maleeshiyaadkii dagaaladii Tigrayga lagula dagaalamay ka qayb galay qaybo badan oo kamid ah Liu Poliskii la isku dayay in hubka laga dhigo iyaguna markooday kacdoon u gaar sameeyeen waxay dhaheen waa ka baxanay maxaa la yiraahdaa allegiance ama taageeradii Abiy Ahmed dhulkaygan difaacanayna axmaaradii markaa jabhad kale oo marka qaarkood la dhihi karo TPLF kamaba hawl yara ayay dhulkoodii ka bilaabeen Eritreankuna wixii farsamo ay siin karayeen way siiyeen waxa kaloo iyadoo runtii xiiso leh intuu Abiy Ahmed waxa ku mashquulsanaa wuxuu xiriir dhex maray TPLF kii shalay maartay lala dagaalamay iyo Eritreanka laftooda oo iyaguna istiraatiijiyadooda ka fahmay inay iskaashadaan oo Abiy Ahmed u midoobaan marka TPLF iyo siyaasad fawarqina mar kale wax ku heshiiyeen waxna xorkiisu yahay in Abiy Ahmed maartay la iska wada dhaco marka xiriir baa waqooyiga Itoobiya ka abuurmay u dhaxeeya Faano oo axmaara matalaysa TPLF oo Tigrayga matalaysa iyo Eritrea oo dawladda iyaduna Itoobiya ay saseegan yihiin marka waqooyiga Itoobiya oo dhan waxaad moodaa saameynta Eritrea inay hadda ku baahan oo Itoobiya awood ahaan xilfigeedii uu aad u daciifay waa gartay hadda maxaa ka jira in Abiy Ahmed markii talada uu yimid sida aad sheegtay wadanka xiisad ayuu cagaha u geliyay isku dayadii iyo damacyadii uu higsanayeen wax wali maysan u suuragalin sidaas daraadeed marka maanta xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa military ee dalka uu ku hogaamiyey iyo colaadda ilaa imika taagan Itoobiya maxay ka dhaxashay burbur bay horta ka dhaxleen waxay yiraahdaan warbixinaha qaarkood hadda inta taariikhdan dambe la xusuusto ciidamada Itoobiya xilliga ay ugu tabarta yaraayeen ama ugu kala daadsanaan badnaayeen ayay ku jiraan oo Abiy xataa hadduu tallaabo military qaado waxa uu ka heli doono oo badan ma la garanayo ciidamada Itoobiya aad bay u kala daadsan yihiin dagaalka Tigrayga dhaawac weyn baa ku gaaro aad bay ugu burbureen kan hadda oromada ay kula jiraan ay amxaarada kula jiraan hadda faana aan ka warramaynay maaragtay dib weyn baa ku gaadhay kan oromada ee aad sabab duleedkeeda ka socday oola ay kula jiraan maaragtay wax weyn baa ka soo gaadhay gudaha way kala daadsan yihiin oo qoomiyadihii tafraaruqooda iyo maaragtay ishaynta guduhu aad bay u xooggan tahay Abiy Ahmed markaa xoog ballaaran oo Itoobiya hadda uu dagaal ku qaado si guud ma hayo laakiin waxa iyaduna muuqata waxay yiraahdaan saad dadkaaga gudaha u midayso waxaad u baahantay cadow banaanka inaad abuurto marka Abiy hadda inuu muujinayo inuu cadow banaanka abuuro inuu aragti weyn dadka u abuuro dadka wax ka qora qaarkood waxay sheegaan inuu Abiy yahay nin taariikh jecel marka inuu rabo inuu xaqiijiyo waxyaabaha hadda ay sheegaan waxa kamid ah wabigii Nayla maalintii uu xariga laga jiray oo dabcan Malla Zanaawi uu bilaabay muddo soo socday hadda wuxuu ku darsaday bay yiraahdeen waxyaabaha taariikhda isagu xaqiijiyay isaga bogagiisa ku qormay marka sidoo kale wuxuu rabaa inuu Itoobiyana dekad u sameeyo sidoo dooraba ha ugu helay marka qof jecel inuu taariikh ka tago ayay ku sifaynay marka tallaabooyin aan la qiyaasi karin baa ka iman kara laakiin hadda xaaladda muuqata waxa weeyaan in dadkoo dham ay tilmaamayaan Itoobiya Eritrea xaaladoodu inay dagaal aadi karto marka hanqaltaagan badda Soomaaliya badda Eritrea markuu dhac mar dagaalkan masaarida marka waxaas oo dhan waxaad leedahay waa wax uu ku doonayo inuu xuduudda gudahana ku mideeyo dadka Itoobiyaankana ugu soo dhiciyo wax uu mustaqbalka taariikhda u gali karo waa gartay maanta bal ka waran sidee dhulka loo kala haystaa mucaarad iyo dawlad intaba maamul goboleedyada aad noo sheegtay ee kala qaybsamay imise ayaa taageersan dawladda imise ayaa mucaarad ah bal awoodda maamul ee ka jirta hadda gudaha Itoobiya suurad naga sii horta Itoobiya yaa wax taageersan inta badan waa adagta maadaama oo dadku ay aad u kala duwan yihiin
laakiin waxa kaliya hubnaa waxa weeyaan gobolka Tigrayga intiisa badan inay gacanta jabhadda Tigrayga ay ku jirto waxa kale oo hubnaa waxa weeyaan magaalooyinka waaweyn iyo wadooyinka halbowlaha marka laga reebo in gobolka Axmaarada intiisa badan nafaano ay si uun u xukunto waxa kale oo ognahay jabhaddu inay kacdoon hubaysan oo marka qaarkood Addis Ababa gudaheeda maaragtay bartilmaameed ka sameeyay inay iyaguna ku jiraan waxa kale oo ognahay in Eritreanka ay isu diyaarinayaan inay dagaalamaan oo natiijada ka dhalan doonto aynaan garanayn qodobadaas oo dhan marka waxay taageereen jabhadda Oromada ka waran jabhadda Oromadu waa tan leeyahay Addis Ababa waxa laga yaabaa inay bartilmaameed ka sameeyaan marka Abiy taariikhiyan wuxuu isku dayayaa inuu Oromada u muujiyo inuu yahay qofkii ugu horeeyay oo Oromo oo Itoobiya xukuma saas daraadeedna uu mudan yahay inay taageeraan marka waxa laga yaabaa taasi mararka qaarkood inay taageeradii ugu badnaayay Oromadu ay kacdoonkiisa kaga hormaan lahayd marka qaarkood aanay dhicin oo dad badan wali isaga ay u arkaan inuu yahay wiilkoodii oo qoomiyada kale ay xukunka ku hayaan laakiin waxa xaqiiqada ah waxa weeyaan dad badan oo Oromo ah inay qayb ka yihiin halgan kala doonaya in Abiy Ahmed xukunka laga qaado waa gartay waxa jiray maqaal ay qortay The Economist oo ay ku sheegaysay in generaalo Oromo ah kuwa Tigray ah kuwa Amxaara ah iyo jabhado badan oo dawladda ka soo horjeeda inay Suudaan ku shirayaan garabna ka helayaan Eritrea ujeedkan uu yahay in Abiy Ahmed gabi ahaanba la rido dhaqdhaqaaqaas intee ayuu la egyahay Eritrea de colaad muuqata ka dhaxaysa hadda iyaga Abiy Ahmed cid kastoo Abiy Ahmed ka soo horjeeda inay taageeraan farsamo ahaan wax la dareemi karo sidoo kale Ethiopia iyo Suudaan xiriirkoodu ma wanaagsanay sanadadii ugu dambeeyay waliba Ethiopia waxa lagu tuhunsan yahay inay dhinaca RSF ay la jirto xitaa hadaan si muuqata arrinka u sheegay in RSF taageersan tahay oo burhaankan hadda maaragtay isu dhigaya inuu yahay hogaamiyaha Suudaan in Ethiopia ku ka soo horjeeda taasi markaa waxay keenaysaa Suudaaniyiintuna Abiy Ahmed wax kastoo iyaga ka soo horjeeda inay ka shaqeeyaan kulanka markaa waa ujeeddo muujinaysa in Eritrea iyo Suudaan iyo dabcan masaarida oo aan iyagu marna ka maqnayn iyo dabcan Turkida oo laga yaabo inay farsamo ahaan si ugu jiraan dhamaantood ay doonayaan inay meel uga soo wada jeestaan xukunka Abiyna dabcan wuxuu haystaa Imaaraadka RSF iyaguna waxay haystaan Imaaraadka iyaguna garabkooda marka loolan lagu kala doonayo inuu Ethiopia ay doonayso inay dagaal Ethiopia ku qaado ugu yaraan casab ay gacanta ku dhigto hal mar kadibna wixii ka dhacaa la fiiriyo markaas iyo jabhadahan oo doonaya intaan Abiy Ahmed intaan ku guuleysanin duulaankiisa inay iyagu kaga horeeyaan ay gudaha ka curyaamiyaan daalamahaas ayaa u dhaxeeyay jabhaduhu inay meesha shir ku yeesheen wixii farsamo ay kala qaateen dama warbaahintu way qoraysaa waa gartay Eritrea iyo Ethiopia dhowr jeer xiisadaha way kaceen haddana way degeen labada dawladoodna dabcan damacyo ayaa ku jira tana dhul ay damac kaga jira tana bad ay raadinaysaa xiisadii hadda ugu dambeysay sidee bay ku qarxday xiisadan hadda la leeyahay dagaal ay qarka u saaran yihiin sidee bay ku bilaabatay waxay dareemaysaa Ethiopia in jabhadaha gudaha kula dagaalamaya meelaha ugu weyn ee wax ka helaan ay Eritrea tahay hadday tahay TPLF hadda ka warrabeynay iyo isay isku yihiin nidaamka Asmara hadday yihiin kuwa ka dagaalamaya Amxaarada ama kuwa Oromada ama kuwa Tigrayga jabhadahaas oo dhan meesha shidaal fiican ay ka heli karaan inay tahay Eritrea sidaas daraadeed ninka la yiraahdo Abiy Ahmed wuxuu dareensan yahay in qayb dalkiisii kamid ah ay Eritrea faragelin ku hayso marka maadaama adigu faragelin ku hayso aniguna inaan ku farageliyo dhulkaaga qaybo kamid ah aan si un ku qabsado ayaa horta dareemada kamid ah waxa kale oo iduna dareemada kamid ah labada dhinacba waa run damacay leeyahay damaca siyaasa Afwarqiya Asmara jooga damaciisu waxa weey Ethiopiyada xoogan intii la weeqi kara in la weeqo oo isagu u arkay inay jiritaanka Eritrea caqabad ku tahay dabcan waanay ku tahay Abiy Ahmedna damaciisu ugu xoogan waxa weey sidii hadda aan sheegaynay kow jabhadahan lagu soo hubaynaayay inuu maaragtay isaguna wixii uu sameyn kara sameeyo dabcan waanu ku guuleystay inuu TPLF lefteeda kala jabiyo qayb uu dhinaciisa soo marsado laakiin xaqiiq ahaan labada damac ee magaalada mar walba kala yaalay markii horena 990kiina sababay in la isdilo markii horena sababay in la kala go'o damacyadii wali way jiraan ama ay dhamaaneen marka marxalad bay yara degeen 2 sanadood 3 sanadood kadibna dib bay u qarxeen marka wixii 890kii keenay in labada dawladood isdilaan 990kii keenay in la kala go'o ay baan isleeyahay haddana way keeni karaa inay markale isdilaan waa gartay xiriirka marka Eritrea iyo TPLF ka dhaxeeya intee ayuu la egyahay suuragal ma tahay in Eritrea ay u suura gasho inay gobolka Tigray ku darsato oo heshiis dhaca oo ay ku midoobaan oo Ethiopia inteeda kale ay kaga go'aan Eritrea ay ku biraan suuragal ma tahay hadalhayntaas walaal Faysal way jiri jirtay waagii hore ee Abiy xukunka yimidba inay Tigraygu doonayaan inay go'aan oo Eritrea ku darsadaan damac noocaas uu jiri karay
waxyaaba damaca keeni jirin waxa kamid ah inaan loo arkayn Tigraygu inay yihiin haday gooniisutaa ku dhawaaqaan iyaga keligooda inaan isbixin karin oo dhexdana ay u galaan laba dawladood oo labaduba iyaga cadow u arkaan marka waxaan isleeyahay duruuftu waxay ku qasabtay Tigrayga horta inay la heshiyeen Eritreankana duruuftu waxay ku qasabtay Abiy Ahmed si ay u jilcin karaan inay cadowgiisa saaxiib ka dhigtaan iyaduna waa caadi laakiin waxaan isleeyahay hadii la yiraahdo Tigraygu intay go'aan bay Eritrea ku darsami doonaan meeshaas waxaan isleeyahay waxa la gaari doonaa marka kala furfurka ugu dambeeya Ethiopia la gaaro qolo waliba meeshay doonta ay iska aado waxaan isleeyahay taas wax la qariibsan kara ma inay marka Eritrea ku biiraan in damacoodii hore ay soo celiyaan waa inay Ethiopia weyn maamulaan yaa dhow waxaan isleeyahay labaduba horta waa fog yihiin marka loo fiiriyo waaqacada geeska Afrika sida u socdo waxaan isleeyahay labada aragtiyoodba hadda waa fog yihiin inay isa soo abaabulaan oo Ethiopia waxay ka mid tahay dalalka inta taariikhdooda la yaqaanaba xoogga lagu xukumi jiray Ethiopia hadda 19 maaha qoomiyadaha badankoodu way hubeysan yihiin Ethiopia waxa xoogeystay waxa nationalism-ka la yiraahdo ama qoomiyadda la yiraahdo aad buu u xoogeystay qolo waliba waxay ku dadaalaysaa inay qolada kale intii ay iska dhicin karto ay iska dhiciso haddii Tigraygu gooniistaa ku dhawaaqaan lama qariibsan kara inay qaar kalena iyaguna ay gooniistaa ku dhawaaqaan marka Ethiopian kale oo u sii farfadhiyo oo sugaya Tigraygu intay soo hubeeyaan inay qabsadaan waxaan isleeyahay waaqicii 19 waaqic waa ka duwan yahay Ethiopia waxa ku nool qoomiyada kale oo Ethiopiana oo ka hub badan laga yaabo inay ka tira badan yihiin oo laga yaabo inay ka saaxiib bataan mustaqbalka oo xamaaradan ugu horeyso ay Ethiopia gudaheeda ayaa ku nool oo duruufta Ethiopia la faan malaha u saamixi karin inay mar kale Ethiopia oo dhan ay wada xukumaan marka waxa laga yaabaa inay isku dayaan Ethiopia xukumaan laakiin waxa laga yaabaa maxaarada damaceedu inuu saas yahay waxa laga yaabaa Oromada uga dhow Addis Ababa inuu damacoodu saas yahay marka waxaan isleeyahay inay hal mar intay quwad intaas la helaan ay Ethiopia oo dhan qabsadaan waliba hadda faragelintii dibaduna badan tahay oo dawlado badan oo meesha damac kale ay jiraan waxay TPLF mala uma sahlanaan doonto inay sidaa fudud Addis Ababa ku soo gaaraan waayo 2020kii wixii dhacay waa la wada fahamsan waxaan isleeyahay inay go'aan oo Eritrea ku biiraan iyaduna waxay keensanaysaa in nidaamka dhan ee Ethiopia uu isaguna kala daato oo qolo kalena ay meel kale iskaga biiraan oo Anfarta Djibouti iskaga biiraan oo Soomaalidan kale iskaga soo biiraan oo Eritreanka maxalla Suudaaninta qaar iska raacaan oo qolo waliba hortaa furan ay noqoto taasina markaa waa Ethiopia kala dhaqaaqday Yugoslavia wadadeedii martay Eritrea lafteedu waxa laga yaabaa inaanay rabin hadda albaabka weyn inay isku furto oo loo arkay inay dal qayb kamid ah ay xoog ku qaadatay in loo arko marka waxa laga yaabaa Eritreanku inay daneynayaan inay Tigrayga ka dhigaan meel buffer zone oo iyagu ka taliyaan hadduu doono magacaan Ethiopia ka mid ahaa laakiin meel iyagu ka taliyaan ciidankoodu joogo lacagtoodu ka shaqeyso xuduuduhu isu furan yihiin amniga qowmiga ay ku ilaashadaan maxaa la yiraahdaa Ethiopiana ay ku torjar gareeyaan wixii markaa ku sii xigaa markaa laga sii fikiri karaa waxa dhacay suuragal ma tahay marka hadda ku muuqataa warbaahinta sidaad la socotaba maalmahan waxay aad u qorayaan in dagaalka Ethiopia iyo Eritrea uu yahay kaliya mas'alad waqti oo in uu dhaco oo kaliya la sugayo dagaalkaas inuu aad u soo dhawaaday oo hadda inuu qarxo ay suuragal tahay suuragal ma tahay oo ku muuqataa mase jiraan dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu baajiyo oo hadda soconaya inuu dagaalku dhaco warbaahintoo dhan way saadaalinaysaa warbaahintoo kaliya xataa maaha waxay leeyihiin dadka khibrada ciidanka lala hadlay waxay muujinayaan inuu dagaal dhici doono intaasoo kaliya maaha talisyada labada gobol Addis Ababa iyo Asmar xataa iyagu waxay afka ka sheegayaan xilligii dagaal dhici lahaa gaaray dhawaan wasiirkooda arrimaha dibadda Ethiopia wuxuu si rasmi u sheegay inay rabaan marka qaarkood waxay dood gelinayaan madax bannaanida iyo jiritaanka dawladeed ee Eritrea ay marka qaarkood dood gelinayaan calaamado muujinaya marka inay rabaan inay dagaal u socdaan ayaa muuqata cid xoogan oo hadda ku hawlan inay kala dhex gashaan si guud ma muuqato waxa laga yaabaa xoogaga caalamiga ah inay labada dhinac ay la kala safan yihiin haddii marka aanay dhicin in labada maamul ee Addis Ababa iyo Asmar midkood hadday wax iska bedelaan waxa laga yaabaa inuu dagaalku baaqo haddii tusaale ahaan oo kale xukunka Addis Ababa laga wareejiyo si uu looga wareejiyo Abiy Ahmed ama xukunka Asmar wax iska bedelaan kala wareegga xukunka ay dhici kara waxa laga yaabaa inuu keeno inaanu dagaal dhicin baa laga yaabaa laakiin calaamado badan oo muujinaya inay labada dawladood labaduba ay dantooda hadda ka dhaxarkaan inuu marxaladan dagaal dhaco ayay warbaahintu ay soo tabinaysaa waxay warbaahinta qaarkood tabinayaan in hub loo daabulayo xuduudka oo maaragtay ciidamadii lagu daabulayo oo hubkii iyo gaadiidkii maaragtay xuduudaha meelaha loo daabulayo in maaragtay ciidamayn badan labada dhinacba ay ka jirto dadkii dhalinyarada ahaa la ciidamaynayo waxyaaba cajiibka ah warbaahinta qaarkood sheegay waxaa kamid ah 3 sanadood ugu dambeeyay dadkii dhalinyarada ahaa ee dugsiyada sare ka baxay Ethiopia imtixaanadii waa la daadiyay si aanay jaamacadaha iyo meesha u sii aadan ciidanka u galaan markaas si ku talagala
ayaa waxaa loo ridayaa kumaan kun oo arday oo dugsiga sare ka baxay baa la leeyahay imtixaankii maad gudbin fursadda kaliya haysataa ardayga dhaca marka waa inuu ciidanka ku biirto waa jaamacad iyo fursad kale oo nololeed waa loo diyaariyey kuma taalaba loo sawiray marka ciidamayn baa iyaduna labada gobolba ayaa ka socota marka waxa laga yaabaa inay wax kale oo si u yara baajiya inay dhacaan inuu dib loo yara riixo waa laga yaabaa xiisada oo masaaridoo dabcan qayb ka ah hadday wax iska bedelaan Ethiopia Masar hadday wax iska bedelaan xaaladda Suudaan hadday wax iska bedelaan waxaasoo dhan waa la fiirin karaa laakiin waxa si u muuqda inay labada dhinacba hadda u muuqdaan inay u diyaarsan yihiin horta inuu dagaal dhici karo waa gartay dhawaan waxaad qortay maqaal aad ciwaan uga dhigtay in la joogo xilliga la kala qaybsan lahaa Ethiopia maxaa maqaalkaas aad ku dhistay oo muujinaya in marxaladaas sida aad sheegtay ay tahay waa saadaal guudun waa analysis falanqayn kooban weeye marka laga shidaal qaato waaqica taariikhiga Ethiopia marka horeba ay ku samaysantay oo ahaa dad la isu soo ururiyay Ethiopiaanku waa dad ururisa weeye la isu keenay marka la fiiriyo dadkii la isu keenay gudaha ku noolaa iyo maanta wada jirkoodu siduu maaragtay daciifka u yahay marka la fiiriyo dadka wada jirkooda waxa xoog ku hayn jirtay kolba qolaa xoog ku hayn jirtay maanta in la la'yahay cid wixii xoog isugu hays oo dhinacyadii oo dhan aad mooday inay awoodoodu iska aglowda marka la fiiriyo darafyada dagaalada ka furan marka la fiiriyo faragelinta banaanka ka imanaysa ee damacyada kala duwan leh oo iyaduna runtii xoog badan marka la fiiriyo waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan in ay soo dhawaan karto xilligii Ethiopia dalalka dariska ay ku kala beeri lahayd oo ay kala qaybsan lahayd su'aashan waxay noo jiidaysaa su'aal kale oo ah qowmiyadaha maanta Ethiopia ka dhisan waxaa ka mid ah qowmiyad Soomaali ah maamuladii ay qayb ka tahay haddana maalintii dowladda Abiy Ahmed inay dhacdo ay qarka u fuushay ilaa maanta waxaa lagu tiriyaa ama ay ka tirsan tahay baa la yidhahdaa maamulada tabantaabaya Abiy Ahmed maamulkiisa sida u sii jiri lahaa ka shaqaynaya weliba midnimada Ethiopia ay ka shaqaynayaan baa leeyahay Soomaalidii Faisal horta Soomaalida gobolkaas degan su'aasha runtii aad ay muhiim u tahay Mala Zenawi intii uu xukumayay Ethiopia goboladan sagaalka aan ka hadlaynay Ethiopia ka tirsanaa afar ka mid waxay lahaayeen awood wax loo muujin karo hadda inay la mid tahay waxa veto power kale qaramada midoobay oo kale waa afarta qowmiyadood ee xaq u lahaa in Ethiopia madax ka noqon karaan ra'iisul wasaare tahay madaxweyne tahay wasiirada muhiimka ay tahay waa amxaarada iyo Oromada iyo qoladii la dhihi jiray shucuubta koonfureed markii Mala Zenawi meesha ka baxay Haile Mariam kii bedelay uu ka soo jeeday afarta qowmiyadood markaa xisbiga maxaa la yiraahdaa loo oran jiray EPRDF ay asaas u ahaayeen afarta xisbi baa ku midaysnaa afarta xisbi waxay leeyihiin awood veto power oo ay ugu taliyeen Ethiopia inteeda kale ee soo hadhay shanta maamul ee kale oo Anfarta iyo Soomaalida iyo kuwaas ay ka mid ahaayeen iyagu taageerayaal bay ahaayeen wax coda iyo wax muhiimad ah kama dhex lahayn xisbiga maaragtay maamulkaas dhexdiisa ku dhex dulmanay saas ku ahay Soomaalidii markaa meesha deganeyd ee kuwa maamulka baan dabcan ka hadlaynaa xukunka jooga wuxuun bay sidii kolba qolada kor joogtaa wixii iyagu ay markaa raalli ku yihiin ayuun bay iyaguna raalli ku ahay haddana waxaa muuqata in jidkii oo kale ay mareen inay mareen ujeeddada ah in wixii Abiy Ahmed uu raalli ku yahay ay iyagu raalli ku noqdaan waxay yidhaahdaan Ethiopianimadu waxay yidhahdaan 3 tiir bay leedahay qofka Ethiopianka Ethiopianimadu 3 tiir bay leedahay waxay kow horta waa inaad Christian Orthodox ah tahay saas daraadeed qofka Christian hadduu yahay hadduu madhab kale yahay xitaa Ethiopian dhalada ma aha bay yidhahdaan marka qofka Ethiopianka horta waa in Christian Orthodox waa inuu laba waa inuu magac Axmaara leeyahay haddii magac Axmaara aanad lahayn taas waxay keentay iminka tusaalahaan kale dhulka Oromadu ay degan yihiin oo dhan magacii waa laga bedelay waxa kale keentay schoolinka systemka waxaasoo dhan waa laga reebay dadka Oromada xilliga ay boqortooyada Ethiopia qofku markaa maadaama magac Oromo leeyahay inta ugu badan dhulkaasna Oromo baa deganaan jirtay aabayaashii dhulkaas deganaa Oromada waxa lagu qasbay si ay ilmahooda iskuul u geyn karaan inay magac Amxaari u bixiyaan marka waxun baa laga yaabaa in dhulkaas lagu arko qof saddexdiisa magac hore Axmaara yihiin markuu si yara wadana ay magacyo dhalada oo Oromo ay noqdaan magac islaamnimo ay soo galaan ama qaar indigenous oo magac iska caadi oo maartay geedigeeni warsameheeni oo kala ah oo Oromo uu galo sababtu waa maxay haddii qofku magacii Oromo loo qoray iskuulka looma ogolay marka waa tiir Ethiopianimada kamid ah inaad magac Axmaariya leedahay waa tiir Ethiopianimada kamid ah tiirka saddexaad waxay Amxaariga inaad ku hadasho qofkii saddexdaas wax laga helo ayuu horta Ethiopiana waa aragtidii ay maartay boqoradii kala dambeeyay Ethiopianku ay fidinayeen
horta markaa dominationkaas iyo isdhiibiddaa guud ee la isu dhiibayo inaad amxaarada u dhawaato inaad waxaa u dhawaataa si guud way jiraayeen waxaan isleeyahay markaa nidaamyada hadda meeshaas ka jira weli waxay sii daba socdaan waxaan isleeyahay hadda waa laga soo gudbay oo Etoobiyada noocaas waxaan isleeyahay inay soo laabataa hadda way adkaan doontaa aad iyo aad bay adkaan doontaa laakiin wixii hore ee bulshadu ay 200 sano ugu dambeeyay hadda ay ku soo noolaayeen ayaa waxa laga yaabaa weli nidaamka meesha ka jira inay keensanayso inay ka agdhawaadaan kuwa madaxtooyada jooga laakiin waxaa la aamini leeyahay sida aad sheegtay afarta maamul ee markii hore ama afarta qowmiyadood ee markii hore Itoobiya maamulayay markii ay hogaaminayeen wadanka taageero ay ahaayeen laakiin maanta afartii ayaa si kala qaybsantay halkan meesan ka muuqan fursad ay dadkii la adoonsanayay ay madaxa kor u soo qaadi karaan halkii kuwii adoonsanayay inay midayaan ay ka shaqeynayaan suuradda maanta ka jirta jigjiga oo kale suurad aad u foolxun oo aad warbaahinta isula dhex marayso oo waxay muujinaysaa in Soomaalidii Etoobiyaankii oo kala tagsan inay isu keenayso waxay diyaar u yihiin ay ku dhawaaqayaan midnimada Itoobiya inay muqaddas tahay qoomiyadaha kale waxay diyaar u yihiin afarta qolo waliba qolo ka mid oo qolada shucuubta koonfureed la dhaho maartay qoomiyadaha koonfureed oo iyaga laftoodu hadda sii kala go'go'ayo aan u malaynayo maamulo kalena inay sii kala samaysteen iyaga inta badan wax meesha lagu yara qurxiyay bay xilligaas ahaayeen Ethiopia laakiin laba qowmiyadood baa isku hayn jiray waa Axmaarado inta badan xukunka joogtay iyo Tigreego mararka qaarkood ka boobi jiray qowmiyadda saddexaad hadda soo awoodaysanaysa muuqata waxa weeyaan Oromada waxaad moodaa dadkii kale inay si uun hadda u sugaayeen ilaa xilliyadan saddexdaa kulba kii guuleysta inay sacabka u garaacaan Soomaalida gobolkuna hadda saasay weegiyeen waa gartay aragtida marka maamul ee jigjiga taala ay u fududahay in Etoobiyaanku ay la midoobaan oo midnimadaas ay ilaaliyaan oo dadkoodii ay ka dhasheen ay ku diin iyo ku af iyo ku dhaqan ba ahaayeenna ay ka sii carraan aragtidaas maxaa gadaal ka soo riixay ummaduhu markay jabaan walaal si guud way dhacdaa wax caadi ah oo la arki karo waay waana sababtii aanu lahayn dadka Soomaalida ee gobolkan meesha ugu muhiimsan iyaga degan Ethiopiadan hadda is cunaysa meelaha ugu muhiimsan ee marinada u ah maartay jidadka tareenka iyo dekedaha iyo waxaas oo dhan ka agdhow dad Soomaaliya baa degan haddii marka ay noqoto in Ethiopia la qaybsado ay kala go'go'do waa sababta aanu leenahay dadka Soomaalida ee gobolka degan waxay u baahan yihiin kala furfurka iyo tafaraaruqa gudahooda intay ka baxaan in Ethiopiyada weyn ee la qaybsanayo say qaybtooda uga heli lahaayeen ay ku dadaalaan waa gartay hadda sida aad sheegaysay Ethiopia inay kala qaybsami doonto qowmiyad walibana ay heybsan doonto dad wixii u dhawaa waxaa tiri Soomaalida inay Soomaalida soo raacaan aragtidaas ka waran marka intee ay la egtahay qanaacada aad ku qabto in Soomaalida soo haleelaan marka la kala tago inay soo haleelaan waa iska war kale laakiin hadda waxa yaala waxaan isleeyahay Ethiopia hadda say u egtahay qolo waliba kuwii ay wixisu ahaayeen ayay wax ka raadsanayaan soolahan oo kale anfartu waxay degan yihiin Eritrea waxay degan yihiin Djibouti waxa kale degan yihiin Ethiopia is urursi iyo is qoomiyadeysi ah sidii jiritaankooda ay u ilaashan lahaayeen ayaa ka dhaxay haddii dagaal bilaabmo oo maxaa la yiraahdaa Eritreaanka iyo Ethiopiaanka iyo waxani ay dagaal dhaco qowmiyadda anfartu waxay ku dadaalaysaa sidii ay u noolaan lahayd waxa isirdamaya ay ugu dhex badbaadi lahayd ugu yaraan dhulkeedana ay u ilaashan lahayd inay maxaa la yiraahdaa ay qabsato waxyaaba kale hadda la saadaalay waxa kamid Ethiopia hadduu dagaal weyn hadda ka dhaco waxaan isleeyahay lama rajaynayo intay Axmaaradu soo duushay inay ama diri dhaba qabsadaan ama jigjigii qabri dahar qabsadaan waxaan isleeyahay lama rajaynayo waxaan isleeyahay Ethiopia waa la kala qixi doonaa oo qolo waliba meesheeda ay dabada la gali doontaa Tigreegu waxay ku ururi doonaan maqalle Axmaaradu meel bay ku ururi doonaan qolaba meel bay ku ururi doonaan kadibna meelaha xuduudaha qoomiyadaha ayuunbaa la isku dili doonaa waxaan isleeyahay marka qolo kasta oo Ethiopia hadda ah qolo kale oo ay wixisu yihiin oo xuduudka dhinaca kale ka joogta ayaa inta badan jirta waxaan isleeyahay Soomaalida gobolkaasi duruufo badan oo ku qasbi doona xitaa hadday iyagu maanta maartay ay iska dhaga mariyaan duruufo badan oo ku qasbi doona haddii Ethiopia xaaladeedu ay sii kululaato waxaan isleeyahay isdhagoleyntu way soo gaaban doontaa waa gartay hadda taas waa Soomaali galbeed aan ka soo sheekaynay aan u imaano Soomaalidii kale ee koonfurta iyo waqooyiga hardankan gobolka ka soconaya qayb ayay ka tahay waxaad ogtahay waxay noqotay fagaare lama huraan oo dagaalada soconaya boosaaso ayaa leeyahay Suudaan dagaalka ka socda ayay ku xiran tahay berbera sidoo kale waad ogtahay waxay noqotay saldhig weyn oo Imaaraad iyo Mareykan iyo ay base ka dhigteen sidoo kale Muqdisho hoggaankeedii waad aragtaa marna Addis Ababa jiidanayso marna Sisi uu jiidanayo Soomaalida koonfurta iyo waqooyiga jooga bal doorkooda hardankan soconaya muxuu noqday walaal Soomaalida jamhuuriyadda jooga de
nidaam mideeyo oo aragtidooda waxaas ku aadan ka go'aan qaato horta iyagu ma laha marka tuulo kasta ninka jooga say isagu wuxula muuqdaan ayuu horta ku waajahaya way jiraan dee maaragtay warbixino laga qoray kuwii ugu dambeeyey Middle East uu qorayay inay Boosaaso ay tahay meelaha ugu badan ee RSF wax loo marina waxaan dhageysanaynaa xukuumadda xamar mid wasiirka ah oo sheegaya isagu qiraaya inay Boosaaso laga raro alaab RSF ay leedahay haddana warbaahinta caalamku ay qorayso Soomaaliya maxaa la yiraahdaa duulaanka ka socda meesha la yiraahdo Suudaan meesha ugu badan ee xataa calooshooda oo shaqaystayaasha Suudaan ka dagaalamaya laga soo dejiyaa inay Soomaaliya meelo ka mid ah tahay dhinaca kale waxaa jira tuhuna inay Berbera iyo magaalooyin kale ay yihiin meel Ethiopia ay hub kala soo degto waxaa jira in dagaalka hadda Eritrea iyo Ethiopia la rajaynayo meelaha la rajaynayo in Ethiopia u isticmaali doonto in hadduu dagaal bilaabmo ay wax ka hesho inay Berbera ka mid noqon saas daraadeed Soomaalida jamhuuriyadda degan hal aragti ama hal indho ay ku waajihi karaan waxa ka dhacaya Ethiopia malaha marka tuulo kasta ninka jooga sidoo isagu markaa wuxuu arkayo ayuu ku samayn doonaa waa gartay suuragal ma tahay in hardanka uu mushkiladda uu wato in wadanka uu saameyn xoogan ku yeesho ugu dambeyntii walaal uu yeelanaya wuxuu yeelanaya waxa weeyaan Soomaaliya Imaaraadku way joogaan deegaanada qaar badan oo kamid ah way saameyn xoogan bay ku leeyihiin ciidamada u jooga gaadiid baa u jooga maxaa la yiraahdaa dekedahay gacanta ku hayaan sidoo kalena Turkiga iyaguna dagaalka Suudaan hadda aan ka soo warramayna dhinaca kale kaga jiraana Soomaaliya way joogaan Masar lafteeda waa la hadal hayaa iyaduna dagaalka Suudaan qayb weyn ka ah iyo dagaalka Ethiopia hadda la rajaynaya qayb weyn ka iyaguna runtii Soomaaliya ee hadal hayntooda waadiga ogaan way joogaan xoogaga hadda marka Suudaan ku loolamaya fagaaraha Soomaaliya way joogaan xoogaga hadda la rajaynaya in Ethiopia ku loolamaan fagaaraha Soomaaliya way joogaan Djibouti baa iyaduna kamid ah meelaha fagaarayaasha Djiboutiyaanka laftooda hadda Soomaaliya way joogaan oo door bay ku leeyihiin marka waxa weeyaan Soomaaliya waxay u bannaan taallaa in waxa Suudaan ama Eritrea ka socda any time oo waqtiga kamid ah ay soo gaari karaan hal maaragtay waji oo la iskaga moosi karo dadka Soomaaliya degan ay diyaarsadeen runtii ma muuqato waa gartay ugu dambeyntii marka xiisadan ee maanta gobolka ka taagan halkee ay gobolka ku sii hogaamin kartaa marxaladda xigta maxay noqon kartaa Faisal walaal markaan taariikhda yar fiirino gobolku wuxuu u eeg yahay waagii quwadihii labadii quwadood ee bariga iyo reer galbeedku ay ku loolamayeen adduunka markii shuuciyadu ay soo burburaysay 87 xilliyadii shuuciyadu ay soo burburaysay shuuciyada waxaa raacayay oo iyaguna burburayay nidaamyadii shuuciyada ku daabnaa ee heshiiska lahaa dunida oo dhan laakiin geeska Afrika marka isbedel baa xilliga geeska Afrika ka socday Suudaan kacdoonaa ka socday markii dambe keenay in xukunka Suudaan uu isbedelo Ethiopia kacdoonaa ka socday markii dambe keenay in Ethiopia xukunkeedii isbedelo oo waliba dawladdan hadda aan ka hadlaynay Eritrea kacdoonka ama isbedel zilzaalkaas dhacay ayay ka dhalatay oo dawladihii militariga ku burbureen Soomaaliyadan hadda kala daadsan waxay ahayd macnaha natiijooyinkii ka dhashay maxaa la yiraahdaa dagaalkii qaboobay adduunka reer bariga iyo markaa wixii ku xidhnaaba way daadanayeen geeska Afrika wuxuu ila eeg yahay sawirkii malaha uu lahaa 87 xilliyadaas waxa la rajaynaya marka 90 marka la soo gaaray inay wax isbedeleen waxa suurtagal ah hadii wax weyn oo kale aanay dhicin nidaamkan hadda aan arkayna geeska Afrika ka jira waqti aan fogeyn waxaan isleeyahay waxba iska bedeli doona dhankee u liici doona marka waxa aad u xoogaysanaysa aragtida ku saabsan qoomiyadda iyo kala abtirsiga iyo waxaas ayaa geeska Afrika hadda xoogaysanaya Suudaan inay laba u kala go'do lama qariibsanayo maxaa la yiraahdaa meeshan Darfur in dawlad kale oo ugu yaraan go'nista ku dhawaaqdo Suudaanta kala ka madax bannaan oo RSF iyo dadkaas ay hoggaan ka yihiin inay ka soo baxdo qariib uma eka waxa laga yaabaa RSF inay ku dadaalaan inay Suudaan oo dhan xukumaan oo de qaybtan koonfurta iyo galbeedka hadda joogaan bad ma laha waa meel maaragtay go'doona weyn laakiin dahabka ugu badan kaydka ugu badan ayaa ku jira waxaan filayaa Afrika ma kaalinta saddexaad bay kaga jiraan bakaydka maxaa la dahab waxyaabaha Imaaraadku meesha uga dagaalameen taas ka mid haddii marka RSF ay ku guuleysan weyday inay Suudaan oo dhan xukunto waxaa laga yaabaa optionka labaad ama aragtida labaad ay qaadan karaan inay tahay inay galbeedka Suudaan goostaan dawlado waaweyn in arrintaas ay ku taageeraan hadduu Ingiriis yahay hadduu Imaaraad yahay haddii qaar kale hadda aynaan garanay tahay oo madax bannaan loo raadiyo inay Eritrea inay kala go'do meesha la yiraahdo Suudaan waxba laga yaabaa inay suurtagal noqoto Ethiopia
Ethiopia hadda waynagan ka hadlayno way gilgilmaysaa oo gilgilanka hadduu qarax dhaco wixii ka soo bixi doona iyadana aad uma garanayno waxaynaan garanayn Soomaaliya hadda mustaqbalka maaragtay 4-3 sanadood soo socda iyada lafteedu waxay gaari doonto saamaynta Imaaraadku aad bay u soo badanaysaa saamaynta Israa'iil waa la sheegaya arrintaasi wax ka dhalan doona iyadana ma naqaan dawladahan hadda aan ka hadlayno ee Ethiopia ay ka mid tahay ciidamo badan baa Soomaaliya ka jooga dabcan haddii Ethiopia dunto ciidamadeedu ma joogi doonaan iyadana runtii natiijo ayaa iyadana ka soo bixi doonta marka waxaan isleeyahay 780 meelahaasaan maraynaa bal waan fiirin doonaa 2-4 sano soo socda maaragtay wixii dhici kara laakiin sawir sidaa u eego ugu yaraan marka furaska dad badan maanta dabcan dhibaatada Ethiopia ka jirta furas xoogan ayaa Soomaalida oo kale uga furan maanta haddii Ethiopia ay kala qaybsanto colaadii ay xoogaysato qowmiyad u kala firdhaan bulshada Soomaalida maanta halkaas furaska ugu muhiimsan ama ugu waaweyn ee ugu jira muxuu noqon karaa fursadna way leedahay muhiim ah khatar inay ka timaadana waa laga yaabaa fursad way leedahay oo dawladda cadow weyn ah oo deris kula ah inay dunto waa fursad aad u muhiim ah wixii faragelin kaaga imanaysa iyo wixii mushkilada ay kugu hayso qof kastoo Soomaali maanta uu ka dharagsan yahay horta waa laga nasanay waxa laga yaabaa marka dawladda deriska ah ee Ethiopia haddii dunto iyadoo kala daadato waxaan qabaa faa'iidooyinka ugu waaweyn dadka heli doona inay Soomaalida yihiin meeshay doonaan ha joogaan magacay doonaan xilligaas ha wataan laakiin nafiska siyaasiga ee ugu weyn cidda heli doonto inay iyaga yihiin baa laga yaabaa khatar kalena waa laga yaabaa inay yeeshaan haddii Ethiopia dagaaladeedu ay xoogaystaan oo laga yaabo marka qaarkood waxay dhahaan Ethiopiaanku haddii dagaala dhacaan nuclear ba uma baahnaba iyaga isku qarqarxaaya macnaha tiradooda cadaawadda maaragtay tabashada ay kala qabaan inta ay leeg tahay gaajada iyo faqriga jira inta uu leegyahay si falxun isu xasuuqi kara haddii markaa dhacdada wax la xakamayn kari waayo ay noqoto oo jabsato waxaa laga yaabaa inaga xuduudaheenu dhan waa furan yihiin waxaa laga yaabaa waxaynan xakamayn karin qulqulka qaxootiga ku qarqay qaxootigaas marka waxa la socda dhaqan xumo dhan baa la socda cudurraa la socda wax badan la socda marka taas inaan xakamayn kari weynana iyaduna runtii khatarteeda ay leedahay waa gartay guud ahaan barnaamijka aan ku falanqeynayna xiisada ka taagan gobolka Geeska Afrika akhyaartana dhageysanaysaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxa nagala qayb galay abwaanageye waan u mahadcelinaynaa kulanti dambe ayaa inoo balana sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وكنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة